Fahad Yaasin Xaaji Daahir oo Xasan Sheekh Maxamuud u soo bandhigay 3 daran mid dooro. Cali Maxamed Geedi ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya oo si weyn u taageeray qorshaha madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud. Aadan Madoobe oo looga yeeray Imaaraadka Carabta. Golaha wasiirada oo yeelanaya kulan aan caadi ahayn oo ay ku jiraan arrimo xasaasiya. Qodobadaas iyo qodobo kale oo xiiso leh ayaan idinku haynaa warka rasmi radio. Fadlan daawade haddii aad nagu cusub tahay oo ku cusub tahay barahayaga bulshada ku soo biir oo channelka subscribe noo saar Facebook-gana noo follow garee. Agaasimihii hore ee hay'adda NISA Fahad Yaasin Xaaji Daahir ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ay xilligan ay u furan tahay 3 daran mid dooro. Fahad Yaasin ayaa waxa uu sheegay in Xasan Sheekh Maxamuud marxaladda siyaasadeed ee uu hadda ku jiro uu kaga bixi karo in uu talada uu dhulka dhigo una cid walba uu la tashado ama uu la heshiiyo. Tusaale ahaan inuu Siciid Cabdullaahi Daney oo xaruntiisu tahay magaalada Garowe ugu tago kana dhaadhacsiiyo ajandihiisa siyaasadeed. Waxaan kaloo Xasan Sheekh Maxamuud aan kula talinayaa ayuu 3 daran mid dooro ayaa maanta ku haysta. 1. Inaad Garowe ka degto oo Siciid Cabdullaahi Daney aad ku qanciso ajandahaaga siyaasadeed. Inaad Abu Dhabi aad ka degto oo si fiican aad isugu dhiibto Imaaraadka Carabta oo aad tiraahdid labada kaleba aniga ayaa ka baarisan. Iyo in aad galabta shir jaraa'id aad ku qabato filada oo aad ku dhawaaqdo inaad talada aad dhulka dhigtay cid walbana aad la tashanayso. Waxa kale oo intaasi u raaciyay haddii 3daasi odaygu uu diido oo ay ku adkaato waxa ay noqon doontaa sidii Ilaahay ka dhigo waxaana sugaysa Miranaayo iyo Xasanow filada soo dhaaf. Sidaasi waxaa bartiisa Twitter-ka ku qoray Fahad Yaasin. Ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi oo u warramay warbaahinta qaranka ayaa si weyn u taageeray qorshaha fila Soomaaliya ee ku aadan qabashada doorasho qof iyo cod taas oo dhalisay khilaaf siyaasadeed oo hor leh. Geedi ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod ah wuxuuna aad u bogaadiyay dadaalka uu geliyay madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Sidoo kale waxa uu ku tilmaamay in dadka Soomaaliyeed ay muddo dheer ay sugayeen in ay codadkooda ay dhiibtaan cidda ay doonayaan ay soo doortaan oo hoggaanka dalka iyagoo ay doortaan taas oo fursad muhiim u ah bulshada. Waxa kale oo fariin u diray hogaamiyaasha maamul goboleedyada iyo xubnaha mucaaradka ah isagoo ugu baaqay in ay u turaan dadkooda ayna raacaan rabitaankooda. Golaha wada tashiga qaranka ayaa kol hore ku heshiin waayay doorasho qof iyo cod ah. Haddana in siyaasiyiinta qaarkood ay ka hor yimaadaan wax laga filayay ma ahan balse waxa aan kula talin lahaa in loo tanaasulo dalka iyo dadka. Sidaasi waxaa yiri Cali Maxamed Geedi oo la hadlayay warbaahinta qaranka. Ugu dambeyntii waxa uu hoosta ka xariiqay oo uu tilmaamay ahmiyadda ay leedahay in doorashada shacabka loo celiyo taasoo abuuraysa kalsooni buuxda isaga oo shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay dadaalka dowladda ay ugu jirto doorashada qof iyo codka ah in la garab istaago oo la garab siiyo. Hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo oo la isku mari waayay arrinta doorashada waxayna taasi keentay in shirkii golaha wada tashiga qaranka uu isaga baxo madaxweynaha Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam oo maanta dib ugu soo laabtay magaalada Kismaayo. Gudoomiyaha Golaha Shacabka Soomaaliya mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe ayaa maanta ka ambabaxay magaalada Muqdisho isagoo ambabaxay safar dibadda ah isagoo ay weheliyaan xubno ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Sheekh Aadan Madoobe ayaa looga yeeray dalka isu taga Imaaraadka Carabta isagoo casuumaad ka helay dhigiisa dalkaasi sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha Golaha Shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa u ambaxay wadanka isu taga Imaaraadka Carabta kadib casuumaad rasmi ah oo uu ka helay dhigiisa dalkaasi ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka. Sidoo kale waxaa intaasi la raaciyay in safarka gudoomiyaha Golaha Shacabka ee baarlamaanka dalkaasi mudane Sheekh Aadan Maxamed Nuur Madoobe uu weheliyo gudoomiyaha guddiga saaxiibnimada baarlamaanka Soomaaliya iyo Imaaraadka Carabta iyo waliba xubnaha baarlamaanka Soomaaliya ku matala baarlamaanka Jaamacadda Carabta. Lama oga safarkan waxaa ku dhex jira ee xilligan ku soo aadiyay in uu Aadan Madoobe aado Imaaraadka Carabta loogana yeero. Aadan Madoobe ayaa sidoo kale kulamo gaar ah waxa uu la qaadan doonaa madaxda sare ee Imaaraadka Carabta waxayna kala hadli doonaan xaaladda Soomaaliya iyo arrimaha soo kordhay. Sidoo kale gudoomiyaha Golaha Shacabka ayaa intuu joogo wadanka isu taga Imaaraadka Carabta waxa uu madaxda dalkaasi kala hadli doonaa xoojinta xiriirka labada dhinac. Safarka Sheekh Aadan Madoobe ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli haatan ay taagan tahay xiisad siyaasadeed oo xoog leh kadib markii uu soo kordhay khilaaf ka jira. Si kastaba ha ahaatee Imaaraadka Carabta ayaa waxa uu ka mid yahay dowladaha sida weyn saameynta ugu leh arrimaha siyaasadda Soomaaliya waxaana sidoo kale
waxaana sidoo kale uu taageeraa dowladda federaalka ee Soomaaliya. Golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu wadaa in ay caawa yeeshaan kulan aan caadi ahayn kaasi oo shir gudoomin doono ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre sida ay ogaatay warbaahinta. Shirkan oo ah mid xasaasi ah ayaa waxaa lagu wargeliyay in ay si buuxa uga soo qayb galaan dhammaan xubnaha golaha wasiirada maadaama uu yahay shir muhiim ah. Fariin loo diray xubnaha golaha wasiirada isla markaana ay aragtay warbaahinta ayaa waxaa lagu sheegay in shirkan uu ka qabsoomayo xafiiska ra'iisul wasaaraha isla markaana uu yahay shir aan caadi ahayn iyada oo xubnaha golaha laga dalbaday in ay soo wada xaadiraan. Wararka ayaa sheegaya in kulankan looga hadli doono qodobo dhowr ah oo ku aadan xaaladda guud ee dalka gaar ahaan arrimaha siyaasadda, amniga iyo dhaqaalaha. Sida wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda oo faahfaahin ka bixinaya shirarkii ugu dambeeyay ee uu ka soo qayb galay iyo waliba waxyaabihii uu qabsoomay. Sidoo kale wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdiqaadir Nuur Jaamac ayaa dhankiisa warbixin xasaasi ah laga sugayaa iyadoo golaha wasiirada iyo ra'iisul wasaaruhu ay ka dhageysan doonaan warbixinta taasoo uga hadli doono guulaha laga gaaray howlgalladii ugu dambeeyay ee lagu qaaday Al-Shabaab iyo sidoo kale dhaqdhaqaaqyada ka socda ee la xiriira mustaqbalka howlgalka ADMIS. Golaha wasiirada ayaa sidoo kale la filayaa inay soo saaraan awaamiir cusub oo la farayo in ay la socdaan hay'adaha kala duwan ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Si kastaba ha ahaatee, shirkan loogu yeeray golaha wasiirada ayaa ku soo aadaya iyada oo xaaladda siyaasadeed ay taagan tahay dalkuna uu galay marxalad cusub isla markaana uu fashil uu ku dhow yahay ama uu ku dhamaaday shirka golaha wada tashiga qaran ee ka socday Villa Soomaaliya maadaama ay ka baxday Jubbaland. Fadlan daawade haddii aad nagu cusub tahay ku soo biir barahayaga bulshada oo subscribe noo saar YouTube-ka, Facebook-gana noo follow garee. warkeennii intaasuu ku egyahay intaan ku kulmi doono warkan lamid waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.